xaflad loogu talagalay furitaanka sanad dugsiyeedka ayaa maanta loo sameeyay ardayda wax ka barata deegaanka degmada Balugubadle. xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, maamulka degmada Balugubadle, waalidiinta, salaadiinta iyo waxgaradka deegaanka degmada Balugubadle. Kama horeystii waxaa madashaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada Qalimaan Sheekh Yuusuf Awnuux, gudoomiyaha hay'adda Al-Huda Sheekh Cabdinaasir, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sanad dugsiyeedkii 2012 ilaa 2013 waxaanaynu ku furaynaa sanad dugsiyeedka cusub ee 2013 ilaa 2014. xafladan iyada oo aynu maanta fadhino oo xaflad aad u agaasiman ah siinaya wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo ay ugu horeyso wasiiradda Marwo Samsam Cabdi. kunaanadkii barasaab ku-xigeenka gobolka Hawd iyo agaasimaha maamulka lacagta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Fadxiya Duubad ayaa mahadnaq u celiyay ururka dhalinyarada Qalimaan. guud ahaan ardayda gaar ahaan inta jaayisooyinka qaadanaysa oo aan jeclay kuwa hadalka badin maayo. waxaan salaan qiimo leh idinka sidaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Marwo Samsam Cabdi Aadan oo aan salaan qiimo leh idinka sidaa. ururka dhalinyarada Qalimaan ayaa waxa ay guddoonsiiyeen 83 arday jaayisada ay ugu tala galeen. jaayisadaan ay ujeedada iyo mihnadu ay tahay sida ay kor ugu qaadi lahaayeen heerartooda waxbarasho. Cabdiraxmaan Samariye, Honkebel TV, degmada Balugubadle.